دونك واحد امتحانك الله كان إن آخر اللي نرجع عليه ابتلاء مبيرا وحكى الله قلت رجلي إن أدوك بحقيقة سلينا تصيح إلا إن تصير أدوك واحد دائل وتجي إن نسكن دور فردين سين وآخر وحصوصا إن نقرن ثاني مال مشغولة إن أنا انت نعاو halkan fadhida ya saaka intu soo toosay yiri alxamdulillah warsaaka waa caafimaad qaba mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogta saaka wuxuu bay sileeyeen manin un ba labadiisa lugood iskaga socdo caafimaad qaba idan nicmada waxa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yar baa dadka xasuusata inta la hayo in yar baa dadka xasuusata si nicmada lagu xasuusiyay kamid tahay beelayna imtixaanku maalinta xanuun yare kugu dhacaad garanaysa ilaahay wuxuu nimco ku siiyay shalay waxa shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maanta maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataa baad garanaysaa aad iska qada la'aatid mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraadeed imtixaanku وحسوسين لو حسوسين يا الله سبحانه وتعالى وين فضلك يا وحي وكسيي ولذلك بقى إلى القرآن كوحكوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إلهي دتك هدو حولها كود الدرجين لها وقوق لها ينبغي إلى إليه ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إلهي أدونك دقالها إنقو أنبو سودتشياه وأدومدي سسية ويسقى وقوم بدن وهو أركتين ديرو قرنا يوحى الصوبمية وحى إصلاحها وحى إصلاحها يسقى قرنا يا ابتلاء بين هذا وحكى الله قلت لقلي إن أدونك بحقيقة دي سلينا تصيه إن لينا تصيه أدونك واحد زائل وتجيي إن نسقون دول فردين سين وآخرة وحصوصنه inaynu garanno tani meel lagu mashquulo inaan ahayn nabi aadam waxa ilaahay ku yiri iyadoo xaqiiqatu dunya loo tilmaamayo faqulna ya aadam inna hada aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa wariyu ka saar shaydaan baa la yiri jannada adiga iyo reerkaaga oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya waa kadeedmaysa marka waxa leeyna leeyahay adduunku waa kadeede meeshay tay inaad u hilowda ama u xoogsato ama raganimadaada iyo xoogaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaaga ba inaad gelisaa waa maxay waa deegaanka dhabta ah haddaad safartay oo meel ku soo baxdo ma sodhan lahayd daara ka jeexo mise waxaad sodhan lahayd wargeedka intaad harsato kugu filane dantaada ku gaadho dee kolayba wada carraabaysaa ee kasii carrow maadaama aad rumaysantahay inaad meeshani meel la dega ahayn waxaad si leedahay maxay أكون مشغول إن حاجات كسر عطيق أبو قف كمؤمن كأدون كساس واركه ما له كون مشغول أو ما أركه مركه وحى الله قد جاي إن منغصات كوب بدين وحيابا لقوا مرجدا إن يكون بدين وحى الله قد جاي إن أهل وده دجان كرسم جاها وأدو قاتيد هالكني ما اللي دجين أنا هي سأوجد بقى إلهي وحقولي وروي جنة هكبي حنادنا وأيو إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وهل كان با اسكون دما laga helaa halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini'aadamka dhiba midnaba halkan baan lagu arag marka adduunka munaaqasaadkiisu waxa ay dareensiinayaan xayaat kaamil inaanay halka jirin wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun وآخرة نولي شرتا با إلهي إليه هدي دادكو قرانيان تاني ماها ماشي نولشي آخرة نولي شرتا تاني وماشي امتحان كبا لين لي لقد خلقنا الإنسان في كبد وحنكو قبا قبين دونا أدونك وحي امتحانك الله كاني إن آخرة لين جعلي سيو وآخرة أي نقطه meesha hunguriga bayniinaga hayo ee isku dhamuhu yaaliin ee nimco noocay tahay baa itaalo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo
soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantay alla taqaan bay yidhaahdaan saxiixa maaha marka dhibtu haysato dadku ilaahay ugu wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin mulxidiintii waaweynaa ka mid ahaayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay wakhtiguu ilxaadka ahaa waa dhakhtar specialista dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay markaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihiioo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaahu haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihin ilaahu haddaad jirto oo aad taa yar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa anaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey baa ilaahay baryadii baa ka aqbalayo tii yaraydun baaba saa kuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something happened waxbaa dhacay miracle baa dhacay bay dhahay mucjiza meesha ka muuqata tii yarayd mar qurun baaba waxeedii bay iswada bedeleen markaasaan raadiyey buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku maahmaahi jiray maahmaaha waxay yidhahdeen there is no atheist in the foxholes bay yidhahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadka wada yidhaahdaan buu leeyahay waa nin gaaleed mulxid ma jira buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya ghafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaana wa tacaala oo waxaa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wakhti ina siiyey inu ku toobad keenno oo hadday ghaflada inugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si ghafladda laynooga toosiyo